الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. run ahaantii maanta farxad badan bay noo tahay anagoo isku xidhka haweenweynaha nagaad maadaama ay maanta tahay 20 guuradii nagaad loo dabaaldegayo aad bay runtii farxad noogu tahay. waxaan hambalyo u dirnaa dhammaan haweenweynaha Soomaaliland iyo waliba gaar ahaan ururada ku bahoobay dalada isku xidhka nagaad iyo shaqaale weynaheedaba aad baan ugu hambalyeenayaa 20 guurada ka soo wareegtay shaqooyinkii iyo hawl shii lagu soo qabtay isku xidhka nagaad. nagaad waa dalad ay ku bahoobeen 47 urur oo ku kala muxuu ahaayay gobolka iyo gobolladoo dhan iyo degmooyinkaba ku kala baahsan. wax qabadka nagaad waa wax aad runtii u muuqda markii wadankan lagu soo noqday ilaa iyo maanta 20 sano nagaad wixii ay qabanaysay waa wax muuqda iyadoo waliba ka hawlgelisay 5 area oo ay kamid ahaayeen sidii dumarka waxbarashadooda sare loogu soo qaadi lahaa oo dhinacyo badan wax laga qabtay sidii waxbarashadii asaasiga ahayd ilaa tii heer jaamacadeed waliba gabdhaha sidii dumarka dhaqaale loogu abuuri lahaa oo loo kobcin lahaa dhaqaalahooda sidii dumarka xuquuqdooda sare loogu soo qaadi lahaa haday tahay xaq ay u leeyihiin inay ka qayb galaan siyaasadda haday tahay xaq ay waxbarasho u leeyihiin iyo haday tahay inay helaan inay ka xoroobaan tacadiyada ka dhanka ah haweenka intaaba loo soo qabtay hawlo badan iyo dadaalo badan laga midhadhaliyay. waxyaabaha soo dhan waxa weeyaan waxyaabaha ay nagaad muddada intaale ku soo caanamaashay waqti dheer ayay ahayd dad badan baa ka soo shaqeeyay xubno muxuu ahaayay badan oo gudiyadii soo maray baa ka soo shaqeeyay 5 gudi baa isu soo daba maray oo maanta gudida maanta joogta ay tahay tii shanaad 3 agaasima soo maray oo nahay agaasimihii saddexaad intaas oo dhanba qori isu dhiibka iyo shaqada la soo qabanayay waxay ahayd mid geedi socodka iyo muxuu ahaayay la jaan qaadisay dimuqraadiyadda dalkani qaatay walow aanu rajaynayno inaanu guulihii aanu u soconay in badan kootadii oo kale ayaanu wali rabno inay dumarku kooto helaan oo kuraas cayiman ku soo baxaan. haddana markaad eegto golayaashii deegaanka oo kale 10kii dumar ahaa ee soo baxay muxuu ahaayay dumarkii badnaa ee la tababaray dumarkii siyaasadda galay kuwaanu maanta u carbinaynay dhalinyarada waa wax badan oo la taaban karo. marka guulaha iyo guulo ka badanba way soo gaadhay maaha waxaynu taariikh yar oo qof iyo laba ka hadleen lagu soo koobayo. runtii maanta waad garan kartaan ilmaha 20 jirka ahi marka maalintii uu dhashay ilaa 20 sano tacabka la geliyo ilmaha 20 jirka intay qaadanayso marka ilmaha 20 jirka oo markuu dhashay ilaa 20 sano shaqeynayna waxa uu soo saaray waynu garan karnaa. marka maanta aad baan ugu mahad celinaynaa cid kastoo nala shaqeysay hay'adaha gacan saarka nala leh hay'adaha dawladda cid kasta oo nala shaqeysay oo ka qayb qaadatay inaan maanta himiladayadii halkaan u taaganayn istaagno aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. waxaan kaloon hambalyo u dirayaa dhammaan boorkii kala duwanaa 5tii boor ee kala duwanaa ee soo maray nagaad agaasimayaashii soo maray nagaad shaqaalihii nagaad ee kala duwanaa dhammaantood waxaan ugu hambalyeenayaa 20 guuradaas iyo dadaaladii ay ka soo sameeyeen. waxa hambalyo aan la iloowi karin iyagana aan u dirayaa dhammaan hay'adihii nala soo shaqeeyay maalintii saliga ay ku fadhiday ilaa maalinka maanta hay'adihii nagala soo shaqeeyay Oxfam HBF Care International Save the Children UN Women UNDP hay'adahaas oo dhan iyo kuwa kale aanan soo koobi karin dhammaantood waxa iyaguna hambalyada iyo guusha aanu gaarnay iyo himilada aanu higsanaynaba ay qayb ka yihiin dadaalkii dhaqaale iyo maskaxeed ay ku bixiyeen nagaad. waxa kale oo aanu hambalyeenayaa dawladihii kala duwanaa ee soo maray Soomaaliland dhammaantood iyagana waanu hambalyeenayaa cid kasta oo bulshada reer Soomaaliland cid kasta oo nagaad
ka qayb qaadatay dadaalka ay maanta gaadhay iyo horumarka ay gaadhay dhammaantood waan hambalyeynaya waxaanan anagu kaliya suma hambalyeynayna ugu wada hambalyeynaya in guusha iyo dadaalka iyo midhaha aanu gaadhnay ay qaybtooda ahaayeen iyaguna maanta naguna laanoonayaan inaanu horumarkaas iyo waxqabadkaas aananu gaadhnayn la'aantood iyo taageeradooda daantood aananu kaliya gaadhnayn aad iyo aad baa u mahadsantihiin